taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Ibraahim Maxamed Cismaan Tiifow ayaa maanta magaalada Baydhabo tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan guutada sagaalaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankan oo muddooyinkii ugu dambeeyay tababar ugu socday xerada tababarada UK ee magaalada Baydhabo iyagoona la barayay gaardo ku ciyaarka shiishka iyo sidoo kale habab kale oo la xiriira dagaalka. Munaasabada tababarka loogu soo xiray ciidanka oo lagu qabtay gudaha xerada waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada booliska Atamis UK iyo xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana ciidanka halkaasi ay ku soo bandhigeen gaardo ku ciyaar aad u qurux badan oo soo jiitay dadkii ka soo qayb galay munaasabada. taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Ibraahim Cismaan Maxamed Tiifow ayaa ciidanka kula dardaarmay in tababarkii ay qaateen guushiisa looga fadhiyo si shacabka looga dulqaado dhibaatada nabadeedka ay ku hayaan. dugsigan suuro gelisay oo ah maanta guutadii sagaalaad ururkii 75aad iyo ururka 104aad korsadii labadii hormood ugu horeeyay maanta qalan jabinayaan aad ugu mahad celinayna. waxaan rajaynayaa sida caadada kuwii kale oo idinkeeda bedelilaan inay bari imaadaan tababarkan halkiisa ka sii socdo. markaan korsada xaalkeeda u soo noqdo saraakiil askartii hortaagan ee ka tirsan guuta sagaalaad waajibaadkii inta lagu siiyay iyo hawshii faraha badneed iyo tacabkii hawshii lidin galiyay waxaan rajaynaynaa miraheeda markaad tagtaan colalkiin ku noqotaan inaan heli doono mira aan ku faraxno iyo hawl aan ku faraxno ka sugayna ilaahay hadoodmo. cilmigii iyo tababarkii aad ku qaadateen dugsigan markaad la tagtaan goobtii dagaalka ama guuta sagaalaad la tagtaan waa inuu noqdaa mid fursadii faraha waqtiga meeshan ku baxay dhididkii iyo hawshii ku baxday miraheedii oo dhab waan la arkaa hadii alla idmo. qolba ciidan aad ahaydeen waana dagaalamayseen dagaal badan oo soo gasheen laakiin waxa ku tala galaysiin in lidin galiyay dhiig cusub tababar cusub niyo cusub iyo tababar ciidan oo heer sare inaad qaadateen sida daraadad goobta dagaalka waa in laga fahmaa isbedel inuu jiro. waxaan rajaynayaa maskaxda mar walba ku haysaan tababarka aad dugsiga ka qaadateen markii goobta dagaalka taga inaad xusuustiina mar walba maskaxda ku jirto macallimiintii hawshidan galiyay iyo waqtigii la galiyay miraheeda waa inaan helnaa hadii alla idmo. waxa tababarka aad u jirteen 8 usbuuc ka badan waa in laga fahmaa inay wax idiin soo kordheen. Siraaj Sheikh warbaahinta qaranka.